madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xafiisyada heer deegaan ayaa waxa ay booqdeen jeelka asluubta gobolka Faafan oo ay ku jiraan maxaabiis u xidhan dambiye isugu jira dil kufsi iyo dhaqan xumo iyadoo ujeedada booqashadan ay ahayd sidii uu soo indheyn lahaa madaxweynaha xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin maxaabiistan haddaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii uu gaaray xabsigan waxa halkaas sharaxaad ka siiyay madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii ku weerinaysay komishineerka komishinka asluubta dawladda deegaanka Soomaalida mudane Bashiir Axmed Xaashi maxaabiistan iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin intaas kadib madaxweynaha ayaa waxa uu cod ka siiyay qaar ka mid ah maxaabiista oo ay qaarkood ahaayeen dambiilayaal loo haysto inay qayb ka ahaayeen tacadiyadii deegaanka ka dhacay waxa ayna ka warbixiyeen sida markaasi loola dhaqmo maxaabiistani iyadoo ay sheegeen in si fiican loo hayo waana kuwan iyaga oo ka warbixinaya arrimahaasi aad baan horta waqtiga madaxweynuhu hogaaminaya aan u salaamaya walkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay saakin madaxweynuhu uu soo booqdo uu noo yimaado anigu waxaan ahaa hoggaan ku-xigeenkii deegaanka ee hore xukuumaddii hore aan ahaa waan xidhnahay maanta waan ku shukriyayaa ciddii isoo xidhay waan ku shukriyayaa maanta in la isoo xidho oo ciddii isoo xidhay dembi aan lahaa oon anigu aan geystay ku aan ilaahay ka galay iyo ku aan shacabka ka galay yaan halta u soo xidhmay oo halkan i keentay waan ka faa'iido ilaahay maan qof ku xidhan maan ahayn qof waxaan ahaa fawdla diintii ilaahay iyo xiriirkii ilaahay awl hore aan gooyay baan dib ugu soo noqday alxamdulillahi rabbil caalamiin wallahi qofkii soo xidhay habeen walba waan u duceeyaa ilaahay ii soo diray habeen walba waan u duceeyaa waayo taas waa wax ilaahay laga helo qof lunsan oo isgaranaynin haddii lagu hagaajiyo wadadii waxay noqonaysaa waa mid ma garanaysaa axmed shukri leh in lagu shukriyo ilaahay oo loo mahad celiyo talabaad waxaan ka bilaabay maxaabiista iyo qaabka nolol hayay anigu hoggaan ku-xigeenkii baan ahaa haddii shalay anigu aan ahaan lahaa anigu shalay haddii la ixidhi lahaa oo shalay xukuumaddii ahayd shalay la ixidhi lahaa aniga maanta dhibaato kale aniga iga muuqan lahay maanta la isoo xidhay wax dhibaato ah haba yaraatee haba intii la ii yeedhay weli layma waraysanin jirkaygii iyo bahalkaygii iyo wax la ii geystay iyo dhib isaga iska daa waa wax ilaahay lagu xamdiyo wixii shalay jiray wixii maanta jiray waxaan anagu samaynayay anigu waxaan samaynayay ilaahay dambi baan ka galay shacabkana dambi baan ka galay qofna uma abayeelin askar ha ahaato shacab ha ahaato maaragtay dad ha ahaato waxa weeyaan wax la ii diray waxaan anigu ku darsaday labadaba way jireen waxaan anigu ku darsaday waayo anigu carruur baan horta markaygii hore anoo carruura ayaan ciidanka gaarka aan noqday qof sharci waxbarasho bartayna ma aanan lahayn markii hore taas waxay keentay dhib badan bay keenaysaa qofka hadduu inuu waxbarasho badan lahayn dhib badan ayay horta keenaysaa lafihiisii iyo ta ummaddaba dhib badan bay u keenaysaa wixii markii lagu diro waa khasban inaad adigu wax ku darsataa anigu horta taangeysanayay yaana ka hadlayaa taangeysanayay maanta horta shacabka marka koowaad cafis baan weydiisanaya iyo xukuumadda marka koowaad xukuumadda iyo shacabkaba cafis baan weydiisanaya sida ay noola dhaqanto ee maxaabiista maanta xidhan loola dhaqmo ee komishinka loola dhaqmo 24 saac toddobaad baa hilibka loogu qalaa cuntada caafimaadka dhakhaatiirta 24 saac anigu haddaan xanuunsado way dul taagantay 8 saac habeen way dul taagantahay shalay ayna jirin waxa weeyaan kii aan anigu nabarka u geystay ima daaweynin buu yidhi kan anigu nabar ku dhuftay ee aan anigu u gacan qaaday dhakhtar muulay geenin buu yidhi aniga laakiin daawadii 8 saac u dhakhtarkii yimid wax ilaahay lagu maxamdiyo weeyaan anigu shacabka dhibkaan u geystay waxa weeyaan dhibkii dawladdii hore ka jiray tacadiga daraa waan geystay oo dawladduna inay cafidana waan doonayaa tacadiyada aan geysto waxaa ka mid ah waa lay amrayay hortanu waxaa lay amrayay raggii mas-uulka ahaa ee meesha joogay yaa ay amrayay waa kooshinadii weligii anigu iskayga waxba uma xukumin oo uma max bannaanaanin la xukumo maa weligay ahaa hoggaanka ayuu iman jiray hoggaanka shukri buu ahaa 24 saacna muunan dhammaan jirin amarku baan qaadanay biyaha geli haddii la dho waa gelnay wixii ku samee la dho waan ku samaynayay kuwii dabka waa loo wada dhannaa marka arrintaas anaa lahaa marka waxaa weeyaan dhibaato tu iska socoto oo dabayla ayaa ahayd annaga qofkii haddii lagu xukumo waxaa samee haddii lagu dhahana oo samayn weydidna waa lagu dhibaatayni waxa waa inaad qasab ku samaysidde haddii kale dhibaatada baa kuugu daraan waxaana neersigii ka shaqaynayay xabsiga dhexe
وحوي عبد النور أرنكيز عاد بن أوجا عدة دشوا سديد عسكري شمحية وحال جاي قدبك من كيو سكرات أي دور كلا كان حبسك الشباب بتاعي الله الشباب بالويس سي لو جرا أي نفط قبح مركز نفط قبح هذا بعد بالإثيوبيا لحظة يو إن كي سنيرني كل ده حبسك أي نوبي مادين نينكي بأجن ميتك شمحية مدي من بور نينكن أبقدب كان يرجع إنه بيوم بان يرجع نيول هل كابن تعبتانو واحد كسل في ريفينك قف كنت تنكر وأنا أجا ويكبح أنا كوني كواد شيء أقابل بابي أيضا مركبة قلبانو واللي دباتي يعني السنة صدق شو حنا كيسك صدق شو كلية أيوه حنا gabagabadii booqashadan ayaa waxaa halkaasi kula hadlay maxaabiistani madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar isagoo markaasi ka warbixiyay in dulucda booqashadooda ay ahayd sidii markaasi u soo indheyndeyn lahaayeen xaaladda nololeed ay markaasi ay ku sugan yihiin maxaabiista ku xiran xabsigan wixii u muhiimsan hadda aan u nimid waxa weeye inaan eegno xaaladiina sida la idin hayo jeelkana la kala fududeeyo oo meel kale loo wareejiyo marka ومرمي بيت بحبش اللي ويدا قل كسيد كورشنال قال لي هذا حبسه معها قفكوا حدود محبوس هي ودم بالقلي معناها ولي بلا ادم اني قف بلا ادم وي مكان حقوق قفك برنامج جوجا ولي هي اي اسغنو ليه ما دام لو سو خيري حويان ما نقون ددن با tahay wali bala aadan ba tahay marka in xuquuqdiina insaanka la ilaaliyo oo dhanka cuntada dhanka meesha seexanaysaan dhanka caafimaadka dhanka cadaaladda oo wixii khaldan in la saxaa inaad dadka ula sinaataan baa la rabaa meesha bad ku xidhan tihiin laakiin jirdil cunto la diido meel khariban oo la seexiyo biyihii oo la ka jaro waxaasi sax ma marka waxaas kale inay dhicin inaan eegno hubsano ay ahayd waan ku faraxsanahay wajigiina inaad sheegteen in xaaladdu ka fiican tahay inay ka fiicnaataan ku dadaalayna dhalinyarada u baahan tihiin wixii khaladkooda maaragtay garta saa uga baxana bari ka maalin dad intay banaanka u baxaan dadkooda dhex galay oo nolol cusub bilowday inaad noqotaan ma rajaynayna haddii la yidhaah una diyaar garooba maaragtay inaad nolol hor la bilowdaan intiina xabsigiina dhammaysata haddaba xukuumaddii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida ka arrimin jirtay ayaa waxay ahayd mid gabi ahaanba ka duudsida maxaabiista dhammaanba xuquuqaha ay xaq u leeyihiin maxaabiista isla markaana lagula kici jiray tacadiyo kala duwan balse maanta uu ka jira deegaanka isbedel siyaasadeed kaasoo ay bulshada ku cabiri karto aragtidooda